السلام عليكم وتعنيهن الدنبي بارين كغهل جرنay dhacdooyinka dilalka ee ka dhaca daafaha dunida waxayna dhacdadeena maanta ay ka dhacday bariga London waa dilaagii khatarsanaa soo maray adduunka lama garanayo shakligiisa lab iyo dhididka uu yahay ilaa maanta amaba saacadan aynu muuqaalkan daawanaysid amaba aan duubayo waxaana uu wereeriyay dhacdooyinkiisa amaba dilalkan uu geystay markii ugu khatarsanaa amaba ugu xoog badnaa waagaas dambi baarida mana ay soo saarin qofaas cidda uu yahay وانا نكي لغو مقعابي امابا قفكيس كو مقعابي Jack the Ripper magacaygu waa Cabdimajid waxaan kusoo gudbiyaa kanaalkan dhacdooyin xaqiiqa iyo waadic faa'iido leh fadlan dad nagu cusubtahay kanaalka ku soo biro subscribe taabo lana wadaag asxaabtaada haddii ku cajabay muuqaalkani mahadsan aynu guda galno muuqaalkeena maanta markuu ahaa sanadku 1888 goob ka mid ahayd bariga London oo lagu magacaabi jiray The Whitechapel ayaa waxay ahayd goob tani amaba aagani xilligaas 1888 meel ay degi jireen dadka aan waxba haysan ee faqriga ahi amaba faqiirka ahi waxayna ku suntaneed amaba caan ku ahayd meeshani amaba aagani meel ay ka dhacaan dilal aad u badan dhibaatooyin iyo rabshado aan dhammaad lahayn maadaama ay ku noolaayeen dadkan dabaqada hoose ahi waxa uu arrinkan meeshan sida ahaadaba waxaa si lama filaan uga bilaabmay meeshii lagu magacaabi jiray The Whitechapel dhacdooyin dilal ah kuwaas oo ahaa kuwa isdaba jooga oo xidhiidh ah dhacdooyinkaas oo ahaa kuwa aad u qaab daran waxayna dhacdooyinkan cabsi aad u ballaaran ku abuureen dadkii deganaa goobtan Whitechapel sababtoo ah lama garanayn ujeedooyinka iyo hadafka uu leeyahay qofkan ama ruuxan dilalka geysanaya waxaa la sheegaa oo laga soo wariyaa ninkan inuu geystay ururis amaba sugeen ahaan 11 dil laakiin si ay ugu caansan yihiin 5 qof 5tan qofna ay yihiin dumar ay shaqadoodu ahayd xilligaas ama waagaas magaalisiga haatana iyo imikana aynu guda galno bilowga qisadan iyo qaabkan uu dilay 5tan dumara 31 bishii August sanadkii 1888 markay saacadu ahayd 3:40 ee subaxnimo ayaa waxaa la helay meydka gabadh lagu magacaabo Mary Ann Nicholas waxaana laga helay meydkan gabadha dada amaba aag lagu magacaabi jiray Fox Row waxaana askarta wargeliyay oo sheegay in lagu magacaabi jiray Charles Cross waxaana Charles sheegay in isagoo maraya dariiqan uu arkay meydka sidii ugu dhaqsiyaha badnaydna uu soo wargeliyay booliska intaas kadib markii ay dul yimaadeen waxay arkeen meyd oo dhabarkiisa dhulka xigo oo dhabarka u jiifo luqunta amaba qoorteedana ay ahayd mid la jebiyay kana muuqday dilaac oo la kala jeexay waliba waxa uu si dheeraa meydkan gabadhan inuu qofka u geystay dilka uu kala baxay qaybo ka mid ah xubnaheeda ee caloosha ku guda jiray intii lagu guda jiray 8 bishii September isla sanadkii 1888 ayaa waxaa la helay iyana mar kale gabadh kale oo meyd ahayd magaceeduna ahaa Annie Chaplin waxayna ka heleen oo uu yaallay meydka gabadhani street ama wada lagu magacaabi jiray Hambury Street waxaana helay nin lagu magacaabi jiray John Davis ninkan ayaa waxa uu gurigiisa ka agdhawaa meeshan gabadha lagu dilay taas kadib waxa uu ninkan arkay meydka gabadhan xilli uu gurigiisa dib ugu soo laabanayay ama ugu soo noqonayay isla markii uu arkayna waxa uu la wadaagay dhacdadii amaba arrinkii uu arkay booliska markii ay yimaadeenna booliska amaba askartii goobtii dulka ka dhacay waxay arkeen in loo dilay gabadhan sidii tii hore amaba sidii gabadhii hore ee loo dilay luqunteeduna waxay ahayd meydkan amaba gabadhan mid la jebiyay xubnaheedii qaar ka midana uu la baxay intaas kadib waxay askartii soo waajahay cadaadis badan oo ka dhana shacabka laakiinse waxa la yaab ku noqotay oo cajab gelisay booliskii amaba askartii sida uu qofkani dilalka geysanaya uu yahay khabiir la bixitaanka xubnaha dadkan ama meydadkan waxaanay ku tilmaameen inuu yahay booliskii ninkan laba ruux mid inuu yahay marka koobaad qof doctor amaba dhakhtar amaba ruux wax badan ka yaqaan cilmiga qaab dhismeedka jirka maalmo yar kadibna dilkaas markay taariikhdu ahayd 27 September isla sanadkii 1888 waxay warqadi soo gaadhay oo timid booliska amaba askartii magaaladan warqadan oo dhigneed qoraalka ku qornaa gudaheedan sida tan waxaan ahay mid aad iyo aad u faraxsan inaad samaynaysaan isku dayo aad ku doonaysaan in aad igu soo qabataan waxaa tihiin kuwa aad iyo aad iga qosliyay sababtoo aad igu qiyaasteen cidda aan ahay waad ku tilmaanteen inaan ahay doctor balse ma ihi waxaana halka hoose ee warqada ku qornaa in uu soo qoray warqadan ruux amaba qof lagu magacaabo Jack the Ripper sidaas daraadeedna waxa uu ugu dhex faafay magacani warqada ku qornaa
dadkii magaalada ku noolaa oo dhan. 2 maalmood kadibna warqadda 30 bishii Sebtembar isla sanadkii 1888 markay aaminta amaba saacadu ku baagnayd 1 habeenimo oo ay saqbarkii tahay meydka gabadh lagu magacaabo Elizabeth Stride, waxaana laga helay meydka gabadhan oo u yaalay street ama waddo lagu magacaabo Burner Street, waxaana helay nin lagu magacaabi jiray Louis Deschamets, waxaana sidii caadada ahayd uu garaacay amaba wacay askartii lana socodsiiyay meydka uu arkay. intaas kadib markay askartii timi goobtii waxay arkeen luqunta amaba qoortii gabadhan oo jaban amaba la jebiyay caadada ahayd amaba kuwii hore ugu dilay, balse iyada wax xubin ah ma uu kala bixin, waxayna u maleeyeen askartii sababta ugala bixi waayey wax xubna ah gabadhan dilaagani laga yaabaa inuu ka cabsanayo amaba ka agdhowaa ninkan usoo sheegay askarta meydka goobtan, sidaa awgeedna uu ka cabsaday dilaagani lagu qabto marka uu ku dhaqaaqayo falkan aadka u qaabka daran. laakiinse 45 daqiiqo kadib dilkii gabadhan waxaa haddana booliskii lasoo wargeliyey meyd gabadh kale oo yaalay street ama waddo lagu magacaabi jiray Manor Square oo ka agdhowaa goobtii uu ka dhacay dilkii hore. sidaas daraaddeed waxa uu hal habeen dilaagani ku geystay 2 dil oo ay u dhaxaysay muddada yar 45 daqiiqo, waxaana se la yaabgeliyay askartii. markan gabadha uu dilay waxaa lagu magacaabaa Catherine Ades. markii uu dilay gabadhan sidii caadada ahaydna uu kala jebiyey qoortii amaba uu dilay sidii uu dili jiray dadkii hore amaba dumarkii hore, laakiinse markan kalama uu bixin xubno aad u tiro badan waxaan ka ahayn mid ka mid ah kelideedii. waxaynu ognahay amaba ogsoonahay la bixidda kelida in aysan sahlanayn waqti xaadirkan aynu ku noolnahay, iskaba dhaaf xilligaas oo ahaa caafimaadku mid aad u hooseeya. intaas kadib 1 Oktoobar isla sanadkii 1888 oo ku beegnayd hal maalin kadib 2 dil ay u geysay dilaagani, waxaa soo gaadhay askartii warqad ay gudaheeda ku qornay sida tani: markan si aan idiin tuso oo aan idiin caddeeyo in aydan qaban karin marka xigta waxaan idinku soo dirayaa hadiyad ahaan qayb ka mid ah jidhka qofkaas markaan dilo. waxaana halka hoose ku warqadan ku xusnaa amaba ku saxiixnaa magacii hore ee Jack the Ripper. 13 maalmood kadibna warqadii oo ku beegan 13 Oktoobar 1888 waxay ahayd boolisku amaba askartu kuwa heegan ugu jira amaba baadigoob ugu jiray in ay soo qabtaan dilaagan iyadoo guri u baadhay, laakiinse nasiib darro wax raad ah oo ka tagay waa ay waayeen. ugu dambeyntiina intii lagu guda jiray 9 bishii Noofambar isla sanadkii 1888 waxaa la helay gabadh meyd ah oo lagu magacaabi jiray Mary Kelly iyadoo dul taalla ama sariirta guriga dhexdiisa amaba lagu dilay sidii caadada ahaydna uu dilay ninka dilaaga ahi sidii uu dili jiray dumarkii hore. se xubna kama uu saarin, laakiinse waxa uu ka saaray oo uu ka fiiqay dhammaan maqaarkii sare, waxaana ay u timi askartii gabadhan oo uu maqaarka amaba skinkii laga saaray oo keliya hilib iyo haykalkii lafaha lagu soo reebay. halkaasna waxaa ku joogsamay dilalkii uu geysan jiray qofkani aan la garanayn lab iyo dhidika uu yahayba, waxaana jiray tuhumo aad u badan oo lagu tuhmay dad aad u badan, balse waxba waa lagu waayay. ilaa maantana hal xidhaala aan la dahfurin ku noqotay adduunka 5taas dumara dilkii loo geystay iyo ciddii u geysatayba. ugu dambeyntii intaan gabagabeyn muuqaalkeenan maxay kula tahay adiga daawadeen ninkan waxa uu yahay, bal nagula wada halka hoose ama faalla bixinta sanduuqa hoose ee kommentiga. muuqaalkeenan maanta intaas inoogu egyahay, intaan ku kulmayna muuqaalka xiga waxaa idinku dhaafaya ama bayd kaga tagayaa dhammaantiinba fi amaanillah.